Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaama dhammaan walaalay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale iyo walaashin Xabsa Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Isku soo naqad wanaagsan oo xiiso badan. Waxaa soo dhaweynaya dhammaan walaalihiin nagu soo biiray. Waa mahadsantihiin. Sii share garay insha Allah channelka soo dad badan u gaaro. Garaali ahaada maalmahan haddana waan soo daahay oo hergab xun ay helay codkayga xataa weli hadda ma fadhiyo. oo codkaya waxaa iga naqan si kale marka waxaas dhahay u kaadiba dadka codkaaga uga naxsanin maanta waxaa inoo wadaa faa'iidada uu leeyahay xulbadda xulbadda dad badanaa waxay aaminsan yihiin inay daawo tahay inkastoo maxaa la dhahayay wax walbo horta la isticmaalayo ay leeyihiin faa'iido iyo khasaaro haddana maxaa la dhahay dadkii baroweeyena waxay dhahaan faa'iida ka helnay dadka qaarna waxay dhahaan wax faa'iido kama helin marka dadka isku mid maahan mar walbana aad rabtid inaad isticmaashid daawo dhireed ama waxyaabahaas haddii aad xanuuno qaar aad qabtid waxaa fiican dhakhtarkaaga intaad la tashatid oo aadan iska isticmaalin marmarka qaar dad waxaa jiro isaga kaa xayeysiinaya waxyaaba qaar oo adigana ku cajabinaya isleedahay waxaan baroobay adigana laga yaabo inuu dhib kuu keeno marka wax walbo aad rabtid inaad isticmaashid oo caafimaadkaaga ku saabsan biliis dhakhtarkaaga la xiriir teeda kale ani dhakhtar ma ihi waxaa ahay hooyo wax baratay jecelna inay la wadaagto walaalaheeda kale Soomaaliyeed waxyaabaha oo ay akhriso ama ay ku faa'iiday ama isleeyahay way u baahan yihiin walaalaha kale inay wax ka bartaan marka xulbadda sideeda banaan English waxaa lagu dhahaa fenugreek waxa waaye waa daawo dhireed oo weligeed lasoo isticmaali jiray kumanaan sano oo ka hor badanaan waxaa isticmaalaan hindida ayaa aad u isticmaasho adduunyada kale waa laga bartay laakiin badanaa hindida daawo dhireed oo dhan hadaa maqashid India kasoo bilaabataa badanaa marka fenugreek ama xulbadda waxa waaye daawo dhireed waaye waxaa la isticmaalaa ayadoo fresh oo yacni markaas lasoo jaray ama ayadoo la qalajiyay oo miraha qaleelka anaga hadda aragno caleenteeda la isticmaalaa waxaa la isticmaalaa xididadeeda hindidana badanaa waxay ku darsadaan cuntooyinka waxay ka dhigtaan shaah waxay ka dhigtaan xawaash ahaan inaa la shiida cuntooyinkay ku darsadaan marka waxaa la sameeyay cilmi baarisyo badan kuwaasoo tusinayo faa'iidada uu leeyahay maxaa la dhahaye xulbadda marka xulbadda waxaa la dhahay waxay yareysaa dhibaatada uu keeno ama riskiga oo qofka inuu ku dhaco uu leeyahay kansarka sokorta buurnaanta ama cayilka kolestaroolka sareeyo ama dufanta jirka ku badan high blood pressure dhiig karka heart conditions wadna xanuunka waxyaabaha la xiriiro bacterial fungal and viral infections infectionada ay keenaan bacteriyada iyo fungalka iyo viruska inflammation caabuqa waxyaabahaas oo dhan waxay u tahaalahay inay reduce gareyso macnaha qofkaas riskiga uu ku qaadi lahaa ayay ka yareynaysaa hadduu qofka isticmaalo marka maxaa kaloo jira laakiin haddii oo isticmaashid inuu dhibaato u keeni karo hooyada uurka leh camal u fiicno because waxaa la wuxuu keenaa contraction waxaa waaye fool camal maaragta xanuunka hooyada marka fool qabanaya xanuunka qabto ayay keeni kartaa marka hooyada uurka leh maloo yacni ma u fiicno inay isticmaasho dadaa waxay dhahaan hooyada markay dhal rabto oo isbuucyada ugu dambeeya hadday isticmaasho foosha u fududeeyaa laakiin ani ahaanteeda weligay ma isticmaalin oo yacni fool fududeys ahaan umaan isticmaalin laakiin waxaa laga contraction ayuu keenaa marka hooyada uurka leh inay ka taxadirto ayaa muhiim wax walbo isticmaalaysid mar walbo waxaan ku leeyahay dhakhtarkaaga la tasho adoo dhakhtarkaaga la tashanin ha isticmaalin marka faa'iidooyinka uu leeyahay fenugreeka way badan yihiin dhibaatooyinna waa uu keenaa marka horta fenugreeka maxaa loo isticmaalaa oo laga sameeyaa dadka waxay u isticmaalaan saabuun ahaan oo saabuunna waa lagu daraa inaa la shiida saabuunna laga sameeyaa dadka cosmeticska iyo waxyaabaa la isku qurxiyo sameeyaan way isticmaalaan shaah ahaana loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa carcarfiska cuntooyinka lagu daro waxaa kaloo loo isticmaalaa syrups ama yacni waxyaabaha oo la dhaho cuntooyinka lagu darsado le adi oo sokor la dhalaaliyo camal sokorta markii la dhalaaliyo syrup ee qataamaho soo inta la dhalaaliyo camal syrup ahaana loo isticmaalaa yacni carcarfis camal adi cuntada inuu dhadhan ama u yeelo caraf gooni inuu u yeelo marka nutritionka ku jiro
fenugreek ama xulbada maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha ku jiro chlorine, inositol, biotin, vitamin A iyo vitamin B, vitamin D iyo soluble and insoluble fiber, iron intaasaa laga helaa lahay. marka faa'iidada uu leeyahay maxaa ka mid ah oo loo isticmaalo xulbada. waxaa lahay xulbada waxay kaa caawin kartaa haddii aad qabtid digestive problems, dheefshiidkaaga hadduu dhibaato ka jiro, sida inaa saxarada ay kugu dhagan tahay, qofka saxarada ay ku adag tahay hadduu isticmaalo waxaa lahaa saxarada ayuu u jilciyaa, inuu appetite-kaaga ay kuu soo celiso, gastriga inuu caawiyo, caanaha naaska hooyada inuu badiyo, sokorta inuu caawiyo, low testosterone or lipido, yacni dareemaha oo dadka dareemka oo jinsiga maalnaha wuu badiyaa rag iyo dumarba, xanuunka oo caadada laga helo wuu caawiyaa, menopause-ka wuu caawiyaa. waxaa lahay gabadha markuu caadada ay ka go-eyso xanuuno badan uu wataa kaasna wuu caawiyaa. arthritis waxaa waaye lafa xanuunka ama jilbaha dadka oo jointska meelaha jirka iska kala laabtaan oo dhan xanuun ku dhaca jiro arthritis laa kaasna wuu caawiyaa. dhiig karka, cayilka, neef qaadsiga problem haddii aa ka jiro hawadaada ama yacni breathing-kaaga ama neeftaada haddii dhibaato ka jirto, nabraha kasoo baxay dad kasoo baxo, exercise-kaaga hadduu yaryahay, ulcers dadka qabo, ulcers waxaa waa gaaska caloosha soomahan, maxaa lahaye nabraha oo dhaawaca kaasoo gaaray, murqa xanuunka, migraine ama headaches madax xanuunka iyo goonjabka, iyo dhalmada xanuunka dhalmada uu keeno, waxaasoo dhan ayaa loo isticmaalaa oo yacni way caawiyaan. marka faa'iidooyinkan lasoo sheego dhan oo laga helo xulbada, kuwo qaar ayaa waxaa lahay waxaa loo helay yacni caddeyn oo xagga scientific ah macnaha oo dhinaca sayniska ah oo caddeemo loo helay, kuwa qaarne dadka waa wixii ka aamineen oo weli caddeyn qof u haysa ma lahan oo qof ku sameysay research ama baaritaan ma jiro oo sax u xaqiijinayo in waxan ay run yihiin. marka laakiin kuwa oo scientific yacni evidence laga helay ama waxyaabaha oo yacni research sax inta loo raadiyey faa'iidadooda la ogaado waxaa ka mid ah inuu yareeyo riskiga oo diabetiska, diabetiskuu yareynayaa, wuxuu kaloo badiyaa hala caanaha naaska hooyada, caanaha naaska hooyada inuu badiyo taas anaa xaqiiqo u arkay, anigaa isticmaali jiray markaa dhalo, naaskana wuu badiyaa. markuu aa aragtid caanahaaga inuu yaraanayo haddii aa isticmaashid wax badan aa ka faa'iideysaa. mishaaridaa ku shiidan kartaa, dadka mishaarida caba haddaad aheenne xulbada oo urkeedana aad neceb tahay waxaa sameyneysaa subaxii 7 xabo oo mirta ah aa laqeysaa, duhurkii 7 kale, habeenkiina 7, intaas 21 xabo maho maalintii, intaasaa laqee biyo caadi ku laqee, caanaha wuu badanayaa. waxaa la meeshaan 2014 study la sameeyey ama baaritaan la sameeyey 25 hooyo oo markaas dhaleen ayaa la siiyey 3 koob oo maxaa la dhahayay xulbad shaaxeeda laga sameeyey, yacni shaax xulbad laga sameeyey 3 koob aa 3 waqti la siinaya, subax iyo duhur iyo habeen, 2 isbuuc kaamil oo isku xigtaa la siinaya maalin kasto. waxaana la arkay hooyooyinkaas la siinaya inuu caanahooda uu batay, marka caanaha wuu badiyaa. taas anaa soo tijaabiye, ana waxa kaliya oo xulbad aan ka tijaabiyey waaba taas, waana hubaa inuu caanaha uu badinayo. laakiin halka problem uu qabo waxaa waaye dhididkaaga uu kasoo shiiraya, kaadida uu kasoo shiiraya, cunugaaga xataa waa u gudbinaysaa mafahant, adina xulba usoo uree laakiin at least caano cunug aa kuu helaya soo mahan. soo marka waxaa kaloo la dhahay weight loss-kan wuu caawiyaa oo dadka miisaankan iska dhimaan rabaan hadday isticmaalaan shaax oo laga sameeyey xulbada, waxaa la dhahay wuxuu kaa dhigaya inaad tahay qof caabuqa, waxaa kaloo yareeyaa riskiga wadna xanuunka iyo dhiig karka, waxaa kaloo loo isticmaala xanuun baabi'i inuu yahay. waxaa la dhahay 51 naago ayaa lagu barooweeyey oo xanuun ka qabay dhinaca caadada, waxay qaateen asagoo capsule laga dhigay oo kaniin lagu shubay, intaa la shiiday capsule dhexda looga shubay, waxayna isticmaali jireen maalintii 3 waqti, 3 biro ugu horeyso oo caadada ay ku dhacdo, 2 bil oo kaamil ay isticmaalayeen, kabacdina waxaa la arkay naagahaas inuu ka yaraaday xanuunkii oo caadada u keeni jirtay. marka
waxaa jira marka waxyaabo oo fenugreek ama xulbada oo dhibaato ay keento oo side effects camal macnaa side effectsigiisa maxaa ka mid ah inuu shuban kugu ridi karo, caloosha inuu kaa qasi karo, kaadidaada inuu kasoo shiiro, caanaha kasoo shiiro, dhididkaa uu kasoo shiiro, inaad haddaa isticmaasho warwareer aad dareemtid ama madax xanuun aad dareemtid. Intaasna wuu keeni karaa side effectsigiisa waaye. Dadka qaarna waxay qabaan aan lahay allergic reaction ay ku qabaan ama inuu xasaasiyad ku kiciyo, ma badno laakiin dadka qaar dadka isku mid maahan, qof walba Ilaahay siduu u sameeyey. Marka waxaa muhiim ah mar walba markaa wax isticmaaleysid ama daawo ha ahaado ama wax daawo dhireed ahaado oo caafimaadkaaga dartiisa aa u isticmaaleysid, please dhakhtarkaaga la tasho, wax badanna ha qaadanin. Yacni waxa markay kaa bataan sun ay noqdaan soo maahan. wax walbo daawo eh hadday bataan sun ay isku bedelaan. Marka mar walba dhakhtarkaaga la tasho, haddii aad cunaysid, haddaa ilmahaaga siinaysid, haddaa qof kale siinaysid, mar walba inaad dhakhtar la tashatid, dadka si fiican u yaqaanan la tashatid, oo adiga go'aan aad iska qaadanin. Hooyooyinka uurka leh inay iska ilaaliyaan. Waxaan rajeynayaa inaa wax un ka faa'iideen, dadka kaleeto ku faa'iiday oo xulbad isticmaalay. Waxaa arka hooyooyin dhahaayo waxaa loo isticmaalaa in la isku cayiliyo ama ilmaha lagu cayiliyo. Taas aniga ma u hayay wax caddeyn ah. Idinka nagula wadaaga qof hore u isticmaalay oo ku faa'iiday, commentigiina hoos ka arko. Hooyooyin kale iyo dad kaleeto u baahan faa'iidooyinka oo xulbada laga helo inay bartaanne u sii share gareeya. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar. haddii aad hore noola joogtana aad aa u mahadsantahay. Jazakumullahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.